ugu yaraan 4 qof oo muhaajiriin ah ayaa dhimatay 5 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay doon ay la socdeen tahriibayaal Soomaaliya ay ku jirto xeebaha wadanka Talyaaniga ilaa hadda ma cadda wadamada ay u kala dhasheen 4 qof ee geeriyooday balse tahriibayaasha doonta la socday ayaa ka soo kala jeeday wadamada Masar, Soomaaliya, Pakistan iyo Sri Lanka. doonta dabku qabsaday ayaa ka soo baxday xeebaha wadanka Liibiya iyagoo tahriibayaashu ay beegsanayeen wadamada Yurub. laamaha gurmadka caafimaadka ee Talyaaniga ayaa sheegay in ay badbaadiyeen tahriibayaal kale oo la socday doonta kuwaas oo qaarna la geeyay cisbitaallo si loo daaweeyo qaarna la geeyay xiriir qaxoonti. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaanu hadalaa, isku sina waanu libisanaa, isku midna waanu nahay. anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. war ma ahayn run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.